وما صنتها ولا ثلاثة وما صنتها ولا لا ضد ما صنتها وأنا كم غلي فكرة هذه يا ركسيد وأنا قاعد نحبه ونفسه بلندي بقول نقطة قدومية ويديو تين نبض عن كل نقطة أو أنا لف برك اللي جاهدو وجفت دجال كسر جسنا روش شيء صوري بعطوتي أودنا على منطقة الله ما يسمى أود وين ضل السنة أفريقيا لو ما مركب فوق وهو رأي أجريسيف كا نيجي جنب حي دبعتها الصعوبة marka la ku celiyo ma la isku dayay in wada xaajood iyo wada hadal iyo isfaham lagu xalliyo madaxdiina hogaamisa oo ay nalaf ma sameeysan wax talaabo ah oo aad marka cad oo lagu doonayo nabad in la helo marka diiga daadanay joojiyo idinku xaqiina dhaqsanayo gooni ugu ayaan xubnimadiina xalinaya arjada waxaan sida la ogsoon yahay markii ay qolada mayaanuhu ay xukunka qabsadeen jabhada wadaniga xoreynta ogaadaya gobolka dalka ogaadaya iyada marka qabsatay iyada madax ka noqotay maamulka ka jiray iyada dhistay ayadoo ku dhureysay waqtiga charterkii ku meel gaarka ahaa in dadka aayahooda la weydiiyo aayahooda ay ka tashadaan taas bay ahayd nabad baan ku bilownay laakiin iyada nabadii garan weyday markii ay 2 sano 3 sano joogeen dagaalka iyada bilowday dagaalkana hadda difaac ma nihin laakiin inaga hujuum ah hasa ahaatee nabad waanu ku weynay nabadana waanu jeclaan lahayn waanu cadaynay inaanu wada hadal aanu nabad ku helo xaq iyaga aanu doonayna laakiin shuruudii bayna wali Itoobiya oofinin bal adigoo raalli ah qofka aan qaado su'aashiisa idinkoo raalli ah habeen wanaagsan waa Samadoon Radio 9.3 soo siida fikrad iyo su'aalba aad u qabto gudoomiyaha xogeenka ururka oo nalaf iyo gudoomiyaha ururka arrimaha bulshada ee jabhada oo nalaf habeen wanaagsan National Liberation Front وكويه عقبت أما وحول تاجن إن بلا كلا سومالية قبل كله أي كسر غير جنان هالجن كأونا لو أريك هالجن كبير يهمت كلية أما كميت كلية كوئك بال صامية أما كود يجي هيك كميت وما كسومالية وايه بلا أنا قدومي كحجان كاسي سلاشة واد ما تنطح ما هالجن مقعاس هالجن كوح عقبضه وكويه متشرو way jiraan dad Soomaaliyeed oo dareenkaas qaba oo magacan u arkay inuu magac qabiil yahay laakiin ma aha magacan waa magac geography ahaan iyo taariikh ahaan loo qaatay si uu sumad ugu noqdo caalamku uu ogaado dadka Soomaaliyeed waa og yahay qadiyadan iyo waxay tahay laakiin ummadaha kale ee caalamka oo laga maarmaynin taageeradooda iyo inay fahmaan qadiyadan in yaa loo qaatay hasa ahaatee ma aha mid qabiila laakiin dareenkaas uu jiro ما أركين قفكي دونية إنه قضية تاجره حتى مجا قديس إنه كتاجره لأن وحويان دب عدوة يضب ولا لا دجال ما ويان حتى هدو قليل كما عوار. بل بدوية وقاك هنا برشلة سلسلة شويدي كل مرة ما يلتاني عالم كله جمره خاصة كان وصلها اعتمادين. لكن الله كلهم دي ما هي نقادين كليه ومط صومالية وتربى بها. dadku maxay u soo qaataan qodobkan su'aashan adiga walaal weydiiyay maadaama dugaanka kamid tahay maxay u soo qaataan arrintan ogaadeenaya maxaa loo soo qaataa oo qabiil loo gaaro bismillaahir rahmaanir rahiim horta marka waa saxsan waa marsan tahay arrinta kolley annagu horta qof Soomaali inaan mataqaana wax ka sheegna ma doonayno laakiin qadiyadu waa qadiyad caan magacuna waa magac juqraafiya taariikhda kan dadka soo qaadanaya laakiin laba baan u kala qaadi karayna qof dhibaatada Soomaaliya hadda qabiilkii magaca markay noqotay ee fool xumaatay ka dhax arkay oo dareenkiisu uu sarnaafisnayn Soomaaliya hadda qabiilada la sheegayo ee qadaayadka Soomaaliyeed iyo soo jireenkii iyo taariikhdii ay ka maqantay inuu qofkaasi noqdo iyo inuu qof dal leh oo cadawgu sidaa uu sheegay adeegsanayo kala u noqdo labada mid uu noqon karo mid baan laakiin ku darin oo waxay qaadatay magaca masalan hadda la sheegay لكن أنا الصومالي هو دجالنا مساعده بالصومالي إنه ولا دجالنا قفت الصومالي أمرك حق بالله من اللي أقوله إنه سيس سو كتاغيره
iyo inuu isaga laftiisu magacu jecel yahay hebla yimaado horta cadowga la dagaalamo marka qofka cadowga la dagaalamaya waxaa naga weydiiyo laakiin ka jiifa isu waxbaba naga weydiin waayahay bal aanu qaadno khadka telefoonka habeen wanaagsan Samadoon radio aragtida ama su'aasha qabta haddii aad noo sheegtay magacaaga magacayga Cabdullaahi Axmed sori Cabdullaahi wadhowahay dhamaan waxaan salaamayaa ragga mas'uuliyiinta stuudiga fadhiyo way adoo raalli si kooban su'aashaada haddii aad ii sheegto waqtigu aad ugu yaraawi okay waxaan su'aal ka qabaa inaan weydiiyo dib hadda ogaadeen oo su'aal aan weydiinayo haddii ay helaan gobonnimadoodii ay dib usoo hantaan ma laga yaabaa Soomaalina hadday ay wax la midoobaan ay wax la qaybsadaan dowladda Soomaaliya waya halganka shacabkaas u dagaalamaya xorriyadoodu waa halgan aaya ka talineed shacabkaasu markuu xoroobo shacabku waa shacab Soomaaliyeed Soomaalida iyo iyagana waa isku dan wixii Soomaali dan u ah iyagana dan waa laakiin markuu xoroobo waxay xorriyad u leeyihiin inay Soomaali ku darsamaan inay gooni isu taagaan inay marka aaya ka talintooda waa in shacabkan aayihiisa la weydiiyo gudoomiye ku-xigeen jabhadan waxay leedahay hoggaantaa sheegtay barnaamijka iminka haysta waqtigan xaadirka ah una talinayay sanadadii ugu dambeysay kulan iyo kulan la'aanba waqtiga haddii dib loo noqdo mar waxaa jiray adigu Seychelles baa ahayd baan filayaa sanado hore 80 aad tiri waxaan ahay gudoomiye ma laga yaabaa mustaqbalka dhow inaad soo sharaxdo jagada gudoomiyaha ma jirto xasan mar aan anigu ii gudoomiye aan ahay sideedaba ma jirto waxa weeyaan jabhadu waxay soo martay laba gudoomiye Allah yarhamu Sheikh Ibrahim Abdallah oo gudoomiyihii ugu horeeyay ahaa iyo gudoomiyaha Admiral Maxamed Cumar Cusmaan welina labada shirweyne ayaa uu ku socdaa shirweynihii saddexaad weli ma aan qabanin waxa weeyaan anigu mas'uuliyadda aan hayo haddaba mas'uuliyadda aan hayo markii la ii magacaabay ma aan diidin haddii gudoomiye la iga dhigay haddaan la iga dhigin laakiin heerka weli ma aan gaadhin anagu aanu ma aragtay isa soo sharaxano waayahay waana la sharaxa habeen wanaagsan FM 99.3 Samadoon radio aragtida iyo su'aasha aad qabto haddii aad noo sheegtay magacaaga su-aashaan qabo waxaa weeyaan haddaan nahay bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Norway waxaan jeclaan lahaa inaan marka hore salaamo oon taariikh gudoomiye ku-xigeenka jabhadda waxaa sidoo kale oo jeclaan lahaa inaan weydiiyo waxaan nahay shacabka Soomaaliyeed shalay shirweynihii kasoo qaybgalay ay u qabteen madaxda sare jabhadda ONLF iyo bulshada Soomaaliyeed magaalada Norway ku dhaqan marka shirada fiican baa ka qaybgalay baa ka mid ah dadka aad u dhaweyn marka xageed taageerada ka geysanaa taageero gacanaha way waad mahadsan tahay si kooban waad mahadsan tahay si kooban gudoomiye aad baad u mahadsan tahay waana ku fahmnay adoo raalli waqtiga aad ugu yaraawgay way هذا موضوع هبين ونكسر ولا فهم السياسة هذا موجود فيه قدام هذا ما أتصنع تاجره وحويا مد معنوي مورال ماتيريال لا وضبا كي عبدون توه كقريب قال كرايسان هذا كماتيريال كماتيريال كهذا كقريب شو معناه كمعنوي هو أسكنديار لكن كله هو يران وين مورال النتاجر واي هاي وقت يقولون تي موجود كوبان أوجي أنا هذا بلانو لحظة دخل القدومية وكان كلمها بالشدة وإسنادين عيقة فدية كل مرة يضحك الله كلام ثاني هي قدام بيه ذلك النروي أريبها تصمدين هو قولي ستين سلام وقرشينها سيقوما waxaan isleenahay waan ku guuleysanay maxaa yeelay horta dadkaanu la kulnay dad Soomaaliyeed baa ahaa meeshaan nimid dadkii Soomaaliyeed aan isugu nimidna su'aalahay la yimaadeen iyo afkaartay la yimaadeen waxaan aad iyo aad aan ugu faraxsanahay dareenka iyo noloshaha u soo noqonaya dadkii Soomaaliyeed oo moodid nuurkii Soomaalinimadu inuu dib u soo noqonayo hadda waxoogaa soo ifay way sidoo kale waxaan jeclaa dalka Itoobiya gelinka shanaad ee Soomaalidu degan tahay adigu aad ka timi aad ka mid tahay hogaamiyaasha maamulka oo haye mustaqbalka iyo rajada laga rabo maskaxdooda inay shaqeyso dadkooda ay badbaadiyaan gelinka ay xoreeyaan sidee u muuqataa xaaladiina marka la eego 5 sano ee soo socotay 10 sano horta waa tii aan markii hore ka afeeftay dalka Itoobiya ma aha halkaasu gelinka shanaadna ma niraahno waxa weeyaan still waa kii shanaad haduu yahay qayb kow laba saddex uu ka tirsan yahay dalkaasu Itoobiya way gumaysataa laakiin ma aha qayb Itoobiya kamida waxaan filaynaa inaan 5 sanadood isla gaaraynin Itoobiya wayna ka muuqataa halkaashay waxay soo dhaweysatay kuwii maadaratay nolosha ka dhacay reer ogaadayay jir waa garab oo onelefa waxay soo dhaweysatay qoliyo
qolyo already 7 sanadood aan urur ahayn oo jira waa urur la yiraahdo Soomaali galbeed isku magacaabay oo awal horeba ay argagixisay ku tilmaami jirtay ay soo dhaweysay marka waad arkaysaa in Ethiopia ay muxuu ahaa ay khalkhal ku jiro umaleynaan maayo inaan sano isla gaarayno insha Allah way su'aasha kale ugu dambaysan ku weydiinayo dadkan isdiibay aad sheegtay Ethiopia ku isdiibay wadad Soomaaliya atiyan walaalo meelaha ka soo jeeda si wada jira dabcan laga yaabo inaad isku ururahdeen markii hore wada shaqeynayseen dadku kala fikrado way noqdaan ma laga yaabaa in caqliyaad isticmaashaan hoggaan noqotaan oo dib aad u socodisaan maskaxdoodan aad sheegto qaldan ما أنا وده شقين ولقي وحياة هاي يجون أور عالمي وهو ديني وهو مبدئي سواها إسلام يعني يجوا مركزات في شيء جنين مددرنا يجا شيء يعني مددر حرير لها يعني توبيا مركز دنبنا يجوا عن صدين إنه هذا سديبان وحاويان وحان لنا هاي عدو صحيح ملهم وحلي له ولا عدو ولا شقين وعدو ولا شقين ضدك اللينا يا ملهم كاسوا عدو مركز dadku saas uu noogu qaybsan yahay ugu dambeyntii dadka laabtanafka Soomaaliga ee Samadoon radio dhageysta si toosan hawada loogu jiro waqtigan laga yaabo qaybta kaydka qaar ka dhageysanaya ereyga ugu dambeeyo aad ku oran lahayd waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed ee radio Samadoon dhageysanaya waajibkiina waa inaad gudataan yani waa waajib waa fardul ayn yani inaad maanta taageertaan qadiyada walaalihiin dad walaalihiina waa la xabiska cunaqabatay lagu sameeyay loo adeegsanaya xataa quwada Soomaaliyeed iyo maamulka Soomaaliyeed in aad garab istaagtaan waana waajib diini ah oo Soomaaliya oo yani dhinac walba ereyga ugu dambeeya ballantiyo gudoomiyaha waan raadayay gudoomiyaha hoggaanka arrimaha bulshada Maxamed Cabdi Yaasiin oo isagu aan u sii daayay ereyga ugu dambeeya adigoo mahadsan Samadoon radio waxaan inta aan doonaynaa shacbiga Soomaaliyeed inaan gaarsiiyo warbaahinta ummadda Soomaaliyeed qaybo kamid ah oo aad u fara badan ayaa waxay ku hayaan diindaabo iyo meel kaga dhac halka ka socda ogaadaya waxaana ka TV-ga la yiraahdo University metal qura hadii aan kaaga soo qaado adduunka isgaarsiintiisii iyo sawfalkiisii oo dhan waa laga mamnuucay ogaadaya University la xafiis bay ka furatay digdiga way adduunkii kale reer koros baa laga yeelay la qaybta maxaa loogu ogolaaday University way kaasi waxa ila la daawanin ma soo jeedinay University oo Soomaaliya iska xidho arrintaana lagu maartay laga dhigto sidaana waxa yiri gudoomiyaha hoggaanka arrimaha bulshada ee ururka oo NNF Maxamed Cabdi Yaasiin Diirane mar kale markii sharafteeda qaaliga ahay sida aan ula kulnay gudoomiyaha ku-xigeenka ururka oo NNF Ogaden National Liberation Front mudane Maxamed Ismaaciil Cumar oo booqasho ama hawlo shaqo ku joogay magaalada caasimadda oo ah dalka Norway Oslo shirna ku qabtay maalintii shalay ahayd Oslo ay ka qayb galeen ummad badan oo Soomaali oo markaa kamid ahaa dadkii halkaasi dhageysi u tago qaatayna fikrada loo sheegay gudoomiyaha ku-xigeenka hoggaanka arrimaha bulshada ayaa sidoo kale Maxamed Cabdi Yaasiin Diirane waxaan leeyahay gudoomiyaha ku-xigeenka ayaa sidoo kale gudoomiyaha hoggaanka arrimaha bulshada Maxamed Cabdi Yaasiin ayaa marti ku hadlanta Samadoon barnaamijka arrimaha bulshada nooca qaybtan yar ku soo qaadanay anagoo runtii ka afaafeenayna waqtigu aad noogu yaraa awgii aan jeclaan lahayn in qadka telefoonka dhacaya caawa su'aalaha ay dadku ku weydiiyaan afkooda aan noo turjumin nasiib darrada ay suurtoobi weysay inaanu qadkii telefoonka iyo waqtigu aad xiriir noogu ah soo daahida ay soo daaheen markii sharaftan iyagu mas'uuliyiin iyo la kulmay madaxda dalkan ka tirsan reer Norway kuwaasoo nasiib wanaag aanu helnay dadkii ugu dambeeyay ana aad ugu faraxsanahay oo ku hadlaya magaca maamulka idaacaddan iyo shaqaalaha dadweynaha degan magaalada caasimadda ee dalka Norway iyo kuwa FM kala xiriiriyay caalamka intiisa kale oo naga maqla internetka Samadoon radio waxaan idin leenahay nabadgelyo ismaqal dambe toddobaadka soo socda hadii Allah ugu daray mar kale aad baad u mahadsantihiin Thank you.